marka ugu horeysa waxaad nooga warbixisaa safarkaagii aad ku maraysay dalkan Mareykanka iyo waxyaabihii aad kala kulantay ilaa hadda. bismillahi rahmaani rahiim. marka la waan mahad celinayaa VOA-da waxaan Soomaalida meelaha kala duwan ay joogto ayaan ugu talagalay inaan soo booqdo oo la wadaago xaaladda dalka ay marayaan dhinac kasta ay tahayba. waxaan socodkii ka soo bilaabay magaalada Minneapolis. Soomaali badan aan kula kulmay si guud iyo si gaar intaba. waxaan soo gaaray 2 maalin ka hor Washington oo aan balamo halkan kula lahaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda cilmi baaris oo martigeliyay inaan kala arrimaha Soomaaliya aan kala hadlo ka bacdina halkaas ay Mareykanka ka doontaa waxaan u gudbi doonaa dalka Canada iyo Toronto. socdaalkaaga inkastoo siyaasiyiinta Soomaalida ay socdaalo ku maraan dunida oo dhan dad badan baa u fasiri kara in ololihii doorashada Soomaaliya oo bilowday oo socdaaladiinan siyaasiyiinta ay ku tagayaan ama Mareykanka ama Yurub qayb ka yahay ololaha aad ugu jirtaan sidii aad doorashada maaragtay taageero fara badan ugu heli lahaydeen. ma la dhihi karaa Cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta bilaabay ololahooda doorashada Soomaaliya? runtii aniga waxaan ugu talagalay dadku way saas u fasiri karaan laakiin aniga waxaan ugu talagalay inaan dadka la wadaago aragtida siyaasadeed had la socoto gudaha ayaan kulamo ku qaban jiray kala duwan oo dadweynaha kula hadli jiray. tii caqabad ayaa ka timid oo dhibaato ka dhacday waa la socotaa. marka inaan dadka dibadda joogana aragtideeda siyaasadeed iyo sidaan u arka xaaladda dalka iyo sida horumar siyaasadeed lagu keeni karo dhibka hadda jiro looga bixi karo inaan la wadaago sababtoo Soomaalida way ku badan tahay dibadda saa la socoto aad ay u joogtaa. marka goobo kale fara badan ayaan tagay marka aragtideeda siyaasadeed inaan dadka la wadaago oo nu sheego ayaa aniga ujeedkayga koowaad uu yahay laakiin waa loo fasiri karaa. marka Soomaaliya doorasho ku soo socota 2020 hadayba suura gasho qof iyo codkiisa ah dadkuna aad bay u danaynayaan in xisbiyo iyo nidaam wax lagu doorto dalka ku soo laabto. weli nidaamkii 4.5 ee lagu qaybsaday awoodda Soomaaliya weli wuu taagaya. xisbiyadiinan iyo siyaasiyiintiinan raba in doorashada ay ka qayb galaan hadii ay suura gasho oo waqtigu saamaxo. ma ku fakarteen in nidaamkan 4.5 ka waqtigii laga bixi lahaa uu yahay oo doorashada suuragal ay tahay xisbiyo ku gashaan? hanaanka horta dhismaha dawladda Soomaaliya maalinba meel buu joogay maalin buu dibadda dalka lagu dhisay dawladda Soomaaliya soo la socota 2012 waxaa bilaabatay in gudaha lagu dhiso dawladda Soomaaliya. adduunkana markaas xoogaa garowshi ayuu na siiyay inkastoo weli aan laga bixin ku meel gaarkii oo waajibaadka ku meel gaarka aan la qaban haddana garowshi yar waxaana la siiyay in dawlad buuxda loo aqoonsado. taasna waxay dhiirigelin ictiraaf dhiirigelin oo laakiin ictiraaf shaqadiisii la qabtay ma ahayn. ka bacdi waxaa ku xigtay doorashadii 2017 ka dhacday oo baarlamaanka 16 uu ahaa oo dadku ay ergooyin ku soo doorteen xildhibaanada. dawladda hadda madaxweyne Farmaajo madaxda ka yahay waxaa laga rabaa inay keento doorasho intaas tii hore ka duwan oo ah dadku inay u codeeyaan nidaam xisbiyana ku codeeyaan. saa ogtahay kulankii ugu dambeeyay Baydhabo gobolada iyo isugu imaadeen dawladda federaalka waxaa lagu heshiiyay in nidaam xisbiyo lagu garo doorashada. kaasaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno dhammaanteen sidoo ku mara dhali lahaa oo ku guuleysan lahaa oo u noqon lahaa nidaam hirgala. 4.5 ka doodiisa way taagan tahay waad ogeed markii horena way taagneed haddana way taagan tahay wayna socod doontaa doodiisa. laakiin aniga waxaan aaminsan dadka Soomaaliyeed oo dhan qof jecel ma leh in ay hanaankan qabiilka oo loo arka adduunka inuu yahay hanaan laga gudbay hadda nidaam siyaasadeed lagu dhiso laakiin waxaa weli la isku fahmi la'yahay qaabkii loo gudbi lahaa qaabka ugu wanaagsan sababtoo dadka markii hore 4.5 keenay waxay taageersanaa waxay ku dhiseen inay tirsanayeen dulmi iyo tabasho ay ku keeneen. marka tabashadoodaas iyo in la address gareeyo la xalliyo u baahan tahay si looga gudbo arrintaas ayada ah. laakiin waqti badan lama hayo oo doorashadii wax yar baa ka harsan. nidaamkii xisaabta si dhammaystiran uma hirgelin oo xisbiyadii diyaar ma wada aha oo qaar baa laga yaabaa inaan weli xataa si rasmi ah isu diiwaan gelin oo hadda qorsheynaya inay xisbiya sameeyaan. dalkii ammaan darra ka jirta waxaasoo dhan markaad eegteen siyaasi ahaan ma idinka dhaadhacsan tahay in doorasho ay qabsoomi karto? anaga waa nala dhacsan tahay inay qabsoontaana waajib haddii kale sababtoo ah waxaa shaki gelaya sharciyada dawladda jiritaankeeda. waxaa hadda dawladda iyadoo dawladihii soo iska dambeeyay ayagoona ka bixin dadka aan ka saarin marxaladii ku meel gaarka sababtoo ku meel gaar waxaa looga baxaa in dastuurka la dhameystiro qof iyo cadna dadku ay sharciyad siiyaan dadka la doortay nidaam xisbiyana lagu tartamo saasaa looga bixi karaa ku meel gaarka intaba weli ma dhicin. saasay tahayna waxaa naloo garowshiyo waxaana la siiyay in ku meel gaarkii laga baxayo dawlad ku meel gaar ayaa lagu tilmaamay. waxa garowshiyadaas kaliya ay ku dhisneed in dawlad kasta mandatekeeda xilliga loogu talagalo markuu dhamaado inay doorasho dhacdo. hadday marka dawladdu keeni weyso doorasho macnaheedu waxa waaye in sharciyadii iyo aqoonsigii dawladnimadaba ay qatar geli karto. saas daraadeed
ama xisbiyada mucaaradka ama kuwa muxaafidka intaba waa in laga wada shaqeeya iyo gobolada iyo dowladda federaalkaba inay doorasho dhacdo haddii kale aqoonsiga ictiraafka dowladnimada Soomaaliya khatar galaya waa gartay haddaan xaaladda ammaanka Soomaaliya wax ka weydiiyo siyaasi baad tahay wadankii baad joogtay muddo yar baad ka soo maqan tahay xilal baad soo qabatay ammaanka wadanka halkuu maraya baad aragtaa dowlad kastoo timaadana mucaarad iyo muxaafad cidooda ha noqotay oo laga laalaadaa oo lugaha lagu dhegan yahay berita hadduu cabdiraxmaan madaxweyne noqdana sidaa oo kale unbaa lugaha looga dhegaya oo dhaqanka Soomaalida iyo siyaasadeeda sidaas ka ah laakiin ma aragtaan wax dadka dhan ay ku midoobi karaan marka laga soo tago siyaasadda oo si dalkii ammaanka loogu soo celiyo dadkii nolol u helaan fikir guud oo idin midayn kara siyaasiyiintiina ma jiraa oo ku midaysantiin su'aal u fiican runtii fikirka midaynta sidiisaba waxa dadka la doortay inay keenaan looga rababa Soomaaliya saddex xoog ayaan u qaybiyay aniga markii ay ishayaan xoog waa naga baxsan yahay waa kuwan international community la yiraahdo dabcan ayaga waxay sheegaan inay balaayiin dollar iyo hanti iyo dadaal ay geliyaan sidii dowladnimada Soomaaliya gadaal ugu soo noqon lahayd xoogga labaad waa inta Soomaalida ay rabto in dowladda la dhiso gobolada dowladda federaalka ah siyaasiyiinta xisbiyada baarlamaanka aqalka sare dadkan siyaasadda ku jiro dhan way xoogga saddexaad waa xoog dowladnimada diidan waa al-shabaab marka qof kasta oo ka soo dhaxbax xoogga dowladnimada in la dhisan raba asaa mas'uuliyad ka saarantaa in xooggaas kala duwan kala aragtida duwan kala fikirka duwan sometimes mararka qaarkood kala danaha duwan inuu isku hayo aragti isugu hayo u keeno aragti oo ku dhiirageliyo inay ka qayb qaataan waxyaalaha qarannimada iyo dowladnimada xoogga saaraya in qofkaas markaas hoggaanka loo doorto iyo tiimka xilka haya laga rabaa mas'uuliyadaas laakiin haddii ayaga ku shaqeeyaan inay isku dayaan intaasna inay meesha ka bixiyaan ka takhalusaan hanaan cusub ayaga ay doonayaan oo siyaasadeed inay soo keenaan hadda dadkan hortoodna waa joogeen wayna joogi doonaan gadaashoodna way joogi doonaan marka waxaa laga rabaa waxay ku xiran tahay cidda timaada inaysan isku qaadanin qof soo dooratay dadka Soomaaliyeed dad ay soo doorteen ma aha oo qof iyo cod kuma imaanin sharciyad ma haystaan sharciyadu waa sharciyad dadban oo qaab dadban ku timid ayaga marka waxaa laga rabaa fikirka fiican ee ka dhawaajisay ee ah dadku inay u wada shaqeeyaan qaranka iyo dowladnimada inay keenaan laakiin haddii dadkii qaar colaadaystaan qaar xukunkii ka tuuraan qaar maaragtay looq u istaagaan dad aanan karti u lahayn inay dowladnimada hogaamiyaan ay ka wada buuxiyaan oo ku dhisan yaa aniga daacadii ah yaa kartile aansan ahayn hadda dhibaatada imaanaysa oo dadka soo wajahaysa oo isku qaldi doonta maxaa la isku raacsan yahay maxaa la isku diidan yahay cidda define garaynaysa oo qeexaysa oo cadaynaysa waxaa laga rabaa inay hogaanka iyo dadka talada haya ay yihiin dad badan oo aqoon-yahan oo Soomaaliyeed oo dunida ku nool walaac ay qabaan oo ah sida Soomaaliya ay noqon doonto mustaqbalka waxay leeyihiin siyaasiyiintii hore u hayay xukunka ee dalka Soomaaliyeed ka mid ahayd 2010kii markaad casilaysay wasiirkii iskaashiga caalamiga waxay doonayaan inay iyagu mar kale ku noqdaan xukunka kuwii cusbaa waxay doonayaan inay ku dheganaadaan had iyo jeer alle waxa loo baratamayay waa kursiga ee cid aragti iyo horumar dalka u dana oo dadka u dana oo nabadda u dana cid ku baratamaysa oo ordaysa ma jirta leesha dadku aqoon-yahan ku qabaan siyaasiyiinta ay kursi raadinayaan ee aan raadinayn xalka ummadda maxaad uga jawaabi lahayd runtii taas waa tuhunkaasna cadayna u baahan yahay laakiin aniga waxaan isleeyahay intaas waxa loo dhimanayo oo loo rafaadayo oo dadku marna duurka loo gelayo dabcan anagu dagaalka siyaasadda muqawaman ka bilaawan in ciidamada Itoobiya aan dalka laga saaro dagaal iyo dhibaato iyo waxaan u soo marnay juhdi fara badan dalkan joognay intaas oo jeera assassination iyo dilid isku day shabaab ka baxsanay waad ogtahay colaad waad joogtay xamar markii Maka al-Mukarrama meesha kaliya la maray ay ahayd dadaa soo maray rafaad iyo dhibaato iyo naftooda halis u geliyay qadarin iyo ixtiraamna dadka Soomaaliyeed iyo ajar iyo xasanaad Ilaahay aan ka helnaan ka rabnaa laakiin dadku saas ma wada aha dadaa raba inay dowladnimada istaagto wanaag u yimaado hore loo socdo dad badan oo Soomaaliya tixgelintaas ayaa raba dadka hadda gadaal ka yimid ee dalka ama ka maqnaa markii dhibaatada ay jirtay ama dadku ay dhibtoonayeen ama halganka lagu jiray dowladnimo raadinta ah gadaal ka yimid Ilaahay u calfay talada inay u dhaqmaan maaha sidii in dadkii hore jiray wax jiray aysan ahayn oo aysan qadarin iyo ixtiraam aysan ka helaynin sababtoo ah koow waxa u baahan tahay waa aragnimo in lagu siiyo waad cusub tahay laba waxa u baahan tahay talada dalka in lagu la qabto aniga waxaan aaminsanahay intaas dhexda ku jirtay xoogga dowladnimo dhisidda raadinaya xataa haddii la isku geeyo challengeska Soomaaliya haystaa kaligood kama bixi karaan laakiin haddaad intii yareed kala geyso oo caqabado kala dhex dhigto oo colaad kala dhex dhigto oo midba gees aad ku bursato runtii kama shaqaynayso waad ogtahay magaaladan Wolwala laga xoreeyay tusaale ahaan Muqdisho kaleeto oo dadka Soomaalida isugu tageen oo laga xoreeyo gacantooda laga bixiyay
maanta waxay maraysaa nabad. madaxweynaha la doortay dadka muqdisho dhana u soo baxay oo u dabaaldegay waa la abuuray jawigaas dad ka horeeya abuuray madaxweyne asagu ma abuurin. marka waxaa la rabaa laakiin in lagu wada shaqeeyo wanaagaas iyo dowladnimadaas iyo soomaalinimadaas iyo in dadka loo bixiyo rajo iyo mustaqbal, laakiin in gadaal loo noqdo, gadaal haddii loo noqdo waxaa ka mas-uul ciddii markaas xilka haysa. waa runta cabdiraxmaan, waayo aragnimada aad ka hadashay siyaasadda soomaaliya muddaa loo soo joogay, waa la arkayay wixii burbur ka dambeeyey. dad baa waxay aaminsan yihiin ama la arkay marka ay xukunka raadinayaan qof soomaaliyeed wanaag raba, ummaddii barwaaqo horseedaya, jannaan idin gelinaynaa bay leeyihiin. markay kursiga fariistaanna wax ka duwan waxa ayaa soo baxa, ama madaxweyne ha noqoto ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama wasiir ha noqdo. qofka shakhsiyadda wanaagsan ee siyaasiga ah ee dadku yaqaanaan ee dadka jecel yahay markuu dalkii tago oo xukun qabto, waxay tahay way aragnimadaada waxa bedela oo nooc kale si kale u noqdo. markii hore waxa la isku jeclaadaan aanan qiyaasnayn runtii, laakiin normal siyaasadda caadatan ahaan dadka tartamaya oo xilka raadinaya barnaamijyo qurux badan way soo dhigaan. dabcan madaxweynaha hadda Mareykanka aan joogno intaasoo barnaamij uu sheegay inuu qaban doono, maanta waxaa hortaagan caqabadaha waa arkaysaa. laakiin sideedaba marka horaan dadka waxaan lagu qiyaasin way aragnimadooda, waxaan lagu qiyaasin kartida intee la agay leeyihin, waxaan lagu qiyaasaynin maxay dalkan usoo qabteen, maxay soo mareen. waa laga yaabaa in la iskala dhaco qof la yidhaahdo qofkanaan jecelnahay ama saan. Soomaaliya waa dalka keliya dadka siyaasadda raadinaya ayagoonan la aqoonin aragtidooda siyaasadeed iyo say wax u qabanayaan iyo mushkiladda Soomaaliya say u fahamsan yihiin xukunka loo dhiibo waay. in badanoo madaxweynayaal dalka hadda soo maray si degdeg isaga soo baxeen, xukunka maalin ku hamiyeen sanad ama sanad ka yar inay raadiyaan wayna heleen, lamana aqoonin gadaashooda siyaasadeed iyo aragtiyadooda. adduunkan kale waa ogtahay dadku waa xisbiyo, aragtidooda la yaqaana. haddii xataa qofka madaxda oo guuleys oo fashilmo xisbigiisa ayaa la haystaa oo lagu dhegan yaho ama difaacaya ama ka hor imaanaya oo iska bedelaya oo hanaankaasaa jira. Soomaaliya laakiin siyaasadda waa shakhsi, waa nidaamka aan rabno in laga gudbo oo xisbiyo loo gudbo oo xisbi lala xisaabtamay hadda ka bacdi aan qof lala xisaabtamin. xisbigaas oo noqdo xisbiga aragtidiisa iyo barnaamijkiisa lagu dooranayo. dadka Soomaalida waxaan ka rajaynaynaa ama xildhibaanada wax doorta ama kuwa shacabka hadday yihiinba inay dadka ku tixgeliyaan aragtida iyo waxa uu qabanayo iyo khibradda uu leeyahay, waxaan oon la iskala dhicin qof oon la iskala caashiqin. laakiin waxa dhibaatadu ka taagan tahay ee dadku ka walwalayaan waa qof walbo meesha taga oo madax noqda waxa u dhaqaaqi laaya ma lugaha lagu dhegan yahay, ma siyaasad kala haysata, ma shakhsiyaddii wanaagsanayd iyo dadnimadiisiiba markuu halkaa tago oo maaragtay dhexgal nidaamkaa burbursan ee si kasta looga faa'iidaysan karaa wax isbedelaan, ma qabyaaladii iyo dadkii ku xeernaa ee ehelkiisa ahaabaa bedela. dadku waxay isweydiinayaan maxaa bedelaya shakhsiga wanaagsan, leadership ama hoggaan wanaagsan maxaa loo leeyahay. caqabadaha iyo taxadiga Soomaaliya lama yara runtii, awoodaha isku hayana ama sida kuwa gudaha ama kuwa gobolka ama kuwa dibadda internationalkana ma yara, waa xoog badan yihiin. aniga waxaan isleeyahay waxaa keenaya qofka xilka raadinaya marka hore mushkiladda la sahlan, banaanka markuu joogay mushkiladda la sahlan tahay. waxaa laga yaabaa way arrimo badan inuusan haynin oo xooga ishaya. aniga tusaale haddaan kaa soo qaado, markaan mucaaradka ahay wax walba ila sahlanayeen. markaan xukuumaddii dowladdu soo galay waan arkay culayska ay leedahay. markaan ka yara baxo dhinaca international community-ga u beeray waxaan arkay waxa international community ka dhex socda ee Soomaaliya ku aadan. qofka marka hadduusan waay aragnimo wada buuxda haysanin way hal angal inuu ka arkaa laga yaabaa dhibka inuu sahlan yahay oo is yidhaahdo waxaan mushkiladan waa ka qaban kartaa. laakiin markuu angalada dhan arko oo dhammaystirtuu fahmo yaa Soomaaliya isku haya, caqabadaha maxay yihiin, xaggee xoogaga Soomaaliya dhibaatada ku ah iyo xoogaga looga faa'iidaysan kara daldhiska say kala yihiin, qofka markuu kala ogaado waa muhiim. ta kalena waa qodob kale waxaa waaye waxaan la yidhahnaa ranking priorities, inaad mudnaanta kala hormariso. Soomaaliya markaad madax noqoto waa run qofka xafiiska tago waxaa ku soo dhacaya mudnaano kala duwan oo ciidaas ka badan. marka saad u kala hormarinaysa ayaa ta ugu daran ah. waxaa laga yaabaa qof kasta oo xoog meel joogane kan ciidanka jooga inuu mudnaan kuu keeno, kan qaybta dhaqaalaha jooga inuu mudnaan kuu keeno, kan qaybta nabad sugidda jooga inuu mudnaan kuu keeno, kan arrimaha dibadda jooga oo ku yidhaahdo 10 dowladood oo muhiim ah na casuumtay. marka qofku wuxuu noqonayaa qof ku wareera mudnaanta. waxaa ka bixi kara marka inuu xusho tiim adag oo shaqada la qaban kara. laakiin madaxdeeni waxay jecel yihiin intii yareeda doorashada la soo gashay iyo ninba ninkuu ka liita in xilalka loo dhiibo. taasna waxay keenaysaa marka inaa cid meeshii kaa saari karta aysan jirin. waa inaa ogolaataa dad kaa karti badan, kaa khibrad badan, kaa waay aragsan inay taladii ay kula wadaan. haddii laakiin taas aad diido oo taxadiyaadkii iyo caqabadihiina ay faray ka bateen, dee wadada aad garaacaysa waa wadadii fashalkii guuldarrada tegaysa. haddaan kula kaftamo, haddaad berri madaxweyne noqoto doorashada gasho lagu doorto, suuragal ma tahay in sidaa aad ku eedeynayso madaxda Soomaalida ee hadda jirta
si lamid aad samayso ragga kula garo doorashada xisbigaaga iyo kulliga siyaasad kuwa aad garbahaada ka buuxiso waxaan sidaan ku dadaali doono ilaahayna ka rajeynaya waafajiyo waxaa waa inaanan sameynin laakiin haddaan sameynin in lala xisaabtamaan ogolahay xisaabtankaan diidi doonin waa gartay qurbaha soomaali badan baa kula kulantay oo socdaal waad ku maraysaa dadku maxaad ka dareentay niyaddooda maxaad ka dareentay beri waxaa jirtay soomaalida qabyaalad qurbaha ku xooganayd oo qof walba qof u durbaantumi jiray marxalado kala duwan baa lasoo maray hadda dadka qurbaha jooga maxaa dareen oo kaaga baxay sidee ku fikirayaan waxaa dareen iga baxay arrintan la yidhahdo social media dadka aad u saameysay oo dadkii waxay soo dhaweysay dadka gudaha joogay iyo dibadda dadkii waxaan ka dareemay dibadda in dad aad gudaha ugu xiran iyo daily nolol maalmeedka gudaha ku xiran inay noqdeen dareen waxaa ii muuqda soomaalinimo oo dadku maadaama 70% Soomaali hadda waa dhalinyaro la yiraahdo dhalinyaradaasna ay rajo iyo mustaqbal ay doonayaan waxaa kaloo ii muuqda inay walow weyn ka qabaan isbeddelka gobolka ka socda ama Ethiopia ama gobolkan Khaliijka iyo Soomaali saameynta uu ku leeyahay Soomaalida inay walow qabaan ii muuqata isbeddelada dhacaya walow weyn ay ka qabaan iyo sida deegaanka saameyn ugu leeyahay ama kilinka shanaada Ethiopia ogeedaan ha noqoto ama dhinacan Djibouti ama Soomaaliya Soomaalida waa markii aan ka dareemayo su'aalaha ay weydiinayaan iyo kulamada ay leeyihiin dareen noocaas oo culus ay qabaan waxay arkaan in qowmiyad ayaga lamid ah ay ka faa'iideysanayaan awoodii gobolka ayagiina ay dayacan yihiin ay muuqata marka dareen waxaan ka arkaa Soomaalinimo dareen ay ku raadinayaan in Soomaaliya ay qaran noqoto ay ka faa'iideysato mustaqbalka sababtoo ah Soomaaliya qolo walbaba wax dhisata ama maamul gooniya dhisata ama maamul goboleed dhisata wixii ay rabtay waa gaari weysay dadkii marka waxaa ka muuqda hami ah wax kasta oo nahay isi kasta wax u dhisnaba wixii waa gaari la nahay seen Soomaalinimo iyo geeska Afrika isbedelayo oo ka socda waana aniguna dadkii baarlamaanka ka sheegan ay khudbada in geopolitics uu saameey doono ama uu xadidi doono ama uu saameyn xoog leh ku yeelan doono mid taban ama mid toganba Soomaaliyada mustaqbalka soo socota welina waa sidii saasay noqon doontaa Soomaaliya waa gartay waxaan rabaa su'aal aan caadiyan bal weydiin siyaasiyiinta oo mucaaradka ah oo aad ka mid tahay haddii la weydiina dabcan jawaabaha la filaya qaar jawaabo aan laga filayn inay bixiyaan ay jiraan ayaa rabaa inaan ku weydiiyo madax baa hadda waddanka ka talisa ra-iisul wasaare madaxweynaha jooga mucaarad baad ku tihiin siyaasaddoodii baad diidan tihiin wax badan oo aad ka sheegteen oo dhaliilaha oo aad ku dhaliilaysaan waa jiraan laakiin dabcan qofku bani aadamka hadduu wax sameynayo wax un wanaagsan wuu sameeyaa boqolkiiba 90 ba ha noqotee xumaanta ha noqotee wax aad hadda ku amaani karto dawladda hadda jirta oo aad dhihi karto tallaab nooca ay qaadeen horumar nooca ay sameeyeen waxaan aragnaa bangiga adduunka oo amaanaya oo leh arrintii corruptionka wax laga qabtay waxaan aragnaa World Bank maxaa la yiraahdaa hay'adda IMF oo amaanaysa wax amaano aad u haysan ma jiraan dhaliisha marka laga reebo wallahi aniga shaqadayda mucaaradnimada waxay tahayba in aan tilmaamno waxa oo dhaliishaas dawladda wax wanaag u tilmaamana waa badi inkastoo aniga aan islahaa runtii arrinta IMF iyo World Bankiga inkastay soo socotay oo markaan arkay saaxiibadii hore ay u horeeyay xukunka ilay wax anaga soo bilawnay ayagana laakiin way ku haayeen meeshii la rabay oo hadda kama aysan degin laakiin bilowga qoladii kale hore kale had laakiin waa arrin aad u fiican anoo isla corruptionka waa laga fiican yahay idaacadiina VOA daba gashay dhibaatada jirta waxay tahay idaacadihii ama mucaaradkii ka daranba idinka daba galay oo xildhibaano laaluush la siiyay iyo kuwa lacag qaatay iyo kuwa adduun qaatay idinka VOA da keentay aniga marka waxaan isleeyahay wanaagii markii hore lagu yimid oo runtii madaxweynaha dadka u hayeen soo dhaweynta aad u weyn prime minister ko cusub oo dadka islahaayeen waa nin dhalinyaro cusub oo dad badan xiriir la lahaa aad loo soo dhaweeyay wanaagii ay ku yimaadeen runtii aniga ma qabo in dadka diiladii ay ka filayeen ay keeneen markastana waxaa lagu fiirinayaa qofka diilada laga qabo intay lacag tahay markasta wax kasto wanaagaada qabata xataa wax hoos u dhigaya haddii markii hore laga filayo qof wax weyn qabana inaad tada wax yar qabato dadku ma arkayaan wax yarka expectation ka waay waxaa markii hore la abuuray expectation aad u weyn ee dawladdan abuurtay oo wax weyn inay qaban doonto dalka tiya hoos soo dhacday marka waxay qarinaysaa xataa wax walba oo ay wanaag ay qaban lahaayeen expectationkii laga qabay ayaga ayagana abuureen runtii yaa qarisay laakiin ma xusaysaa mid iyo laba waxa wanaag ay sameeyeen dabcan qof bini aadan oo shaqo qabtay oo wax wanaagsan aanan qabanin maba jiraan ba waxaan kuu sheegay in IMF hadda shuruudihii ay rabtay inay keep gareeyaan macnaheedu inay ku hayaan meeshoodii ay ka hoos dhicin standardkii waa wax weyn oo qabasho ah inay isku dayeen hay'adaha maaliyadda in laga dhigo hay'ado oo nasahan inkastoo weli aan u baahanahay hanti dhowrka guud in la madax banneeyo sharci waxaa jira baarlamaanka yaala
waana codsi halkan aan ka jeedinayo oo ah hanti dhowrka inay baarlamaanka soo doortaan dowladda inay magacawdo ma aha weli xafiiska madaxweynuhu yaallaa sharcigaas inuu siixaan ka rabnaa si hanti dhowrka u madax banaanaado oo karti u yeela madax banaano uu heli karo inuu hay-adaha dowladda la xisaabtamo uusan ka baqin qoladii soo magacawday inay xil ka qaado marka tillaabooyinaa jiro oo xagga financiga u baahan laakiin ina dhammaystira ay tahay oo in hore loo sii wado ayaga naftooda marka xataa wixii la qabto wanaag anaga in la dhammaystiraan rabnaa wanaaggii waa gartay su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal noloshaada ku saabsan siyaasi baa tahay cabdiraxmaan cabdishakuur soomaalidu inta badan way ku taqaanaa maxaad jeceshahay xilliyadaada firaaqada inaad samayso inaan wax akhriyo sportska say isku tihiin sportiska aad iyo aadaan u fiirsadaa weliba markii uu yahay maaragtay world cupka ama champion league hay cunadu maxaa ugu jeceshaa inaad cunto cunada waxaan ugu jeclahay salmon fishka kalluunka kalluunka hay marka ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd soomaalida ku daawanaysay barnaamijka qubanaha kaa daawanaysa soomaalida waxaan dhihi lahaa soomaaliya mustaqbalkeeda waa mustaqbal iftiimaya rajo fiicanaa jirta ma ihi dadka niyo jabsan aniga markaan arko xoogga soomaaliyeed ee 70% dhalinyaro ah markaan arko tacliimtooda iyo aqoontooda intay la eg tahay markaan arko sida ay u yihiin soomaalida dad entrepreneur skills leh oo ganacsi karti u leh iyo sida adduunka isugu furmaya qaasatan geeska Afrika waxaa ii muuqdo mustaqbal waxay dhigi jireen carabta waacid ah mustaqbal ballanqaad lahaa ii muuqdo runtii soomaalida iga muuqda inaan mustaqbalkaas wada hiigsano inaan soomaalinimada iyo qarannimada ay nagala muhiimsanaato waxaan kale oo dhan oo ama qabiilka ama kooxaysiga ama xataa dowladnimada nafteeda xataa waa wasiilo waa means lagu xaqiijinayo aspiration ummadeed lagu xaqiijinayo rabitaanka ummadda lagu xaqiijinayo dowladnimada nafteeda hadaf ma aha inaan taas ka wada shaqeyno oo garbaha isqabsano oo soomaalida u baxno sababtoo waxaan wajahaynaa marxalad adag oo Soomaali haddaan nahay dadka aniga dhinaca kale ka fiiriya markaan fiiriyo challenge-ga waxaan ahay awal haddaan dowladnimadeena halis ku jirto hadda waxaa laga yaabaa geeska Afrika Soomaalinimadeena inay halis gasho isbedelada dhacaya daraadeed taasna waa inaan fiirinaa taxadiyaadka caqabadahan haysta wanaagga iyo mustaqbalka noo muuqdane yaan fiirinaa weliba Soomaalida Mareykanka marka oo runtii aad ii dhiirigeliyeen Soomaalida kale oo diaspora ama qurbaha joogto way ka yar duwan yihiin aad baa kugu mahad celin aad ama astaan salaam thank you markale aan ku arko